xildhibaanada goob doorashada Araabi oo maalmihii la soo dhaafay baa ku guda jiray socdaal ay ugu koorgalayaan xaaladda bulshadii soo dooratay geedi socodka mashaariicda iyo adeeg bixinta ayaa gaadhay maamulka magaaladaasi Wajaale. xildhibaanada ayaana kulan ballaaran la yeeshay qaybaha kala duwan ee shacabka maamulka magaalada Wajaale iyo maamulka magaaladaasiba, waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay baahiyaha weli ka dhiman magaalada iyo sidii lagu heli lahaa. waana kani xildhibaan Kamaal Xaashi Maxamuud oo xubnaha hogaaminayay madashaasina furitaankeedii ka hadlay. waa xilliga caadigan iska nimaano saan u gudano mas'uuliyadeena ka xildhibaan ahaan oo ah in hawlaha ka socda magaaladan kormeer ku sameeyno, dabagal ku sameeyno, wixii talana aan insha Allah diidano idinkana saasoo kale haddii tabasho jiraan naga dhageysano. haddaan dib ugu soo laabto kormeerkan hadda nimidkii ka horeeyay saad isla howlkan aan ku shiray ka wada tashanay hadad maqlid aadad hasataan waxyaabahan ka tashanay ee ka wada hadalay waxa kamid ahaa hindisaha horumarinta Araabi ee afka qalaad loo yaqaano Arabi Down Initiative. hindisahaas oo ku talagalay in aan isku xirno qurba joogta oo dhalatay goob doorashada Araabi iyo shacabka goob doorashada Araabi say wax isla qabtaan wadna la qaadateen wad soo dhaweyseen kadib waxay noqotay dadkii kale ee qurbaha jooga laftigooda iyagana aan la soo tashano iyaguna ay soo dhaweeyeen jeclaadeen inay magartay ka qayb sameeyeen ficil ay bilaabeen. marka fikirka halkan ku wada gorfeenay qurbihiina maadaama dadkii jooga ay aqbaleen taa hambalaan leeyahay fikirkiina la qaatay insha Allah badalkuna u dhow yahay. isla safarka intaan ku jirnay waxa kale oo noo qabsoomay qalab caafimaad marka lacag ahaan la cabiray noqonayso $14 milyan taana marka waan ku guuleysano saafada ka dawateen embassy DC ku yaala Ethiopia aanu matalay goob doorashada Araabi hay'adda la sahay taana insha Allah soo gaar doona taasina waa guul loo soo kordhay. qaybaha shacabka iyo hogaaminta maamulka magaalada Wajaale ayaa iyaguna halkaasi ka soo jeediyay tabashooyinka jira waxyaabaha loo baahan yahay xildhibaanadu u qaadaan heer deegaan iyo heer federaal halka ay xildhibaanaduna jawaab ka bixiyeen. reer Wajaale horta in badan biyaha ka hadashay biyihiina maanta waxaan u maleeyaa inay si fiican u hagar la'aan u soo dhaceen laakiin haddana waa ka oomanahay soo haddana hawshoodu socoto waa ka oomanahay dadku iyagu biyo ay socdaan ayaa la ooman yahay waxaan ugu hadhay weecintii meelii laga cabiyaa lagu weeciyo waqtigan imka taagan aad baa loo haraadan yahay wayna socdaan biyo taas waa taa tii biyaha weeyaan waxa noqotay tii leerka aad bay hagar uga jirtaa leerka lama ballaarin silc baa leerkaas ka jira iyadana halka saabiyaha oo kale inaan Facebook soo socda wax wanaagsan ka aragno oo warbixinta geysiin wax ka qabatiin ayaan doonaynaa. tawadooyinka iyadana kulay dhulkii banaanaa oo wadooyinka laga sameeyay dhul xidhan way jiraan oo wadooyinka in wadooyinka la furo oo tababareenka lagu saxo iyadana waa u baahanahay oo afraad oo kale imka waa xidig meel alla meel la isku maraa ma jirto. su'aalaha aadna weydiiseen anaga shidaal bay horta noo noqonaysaa sababtoo ah waxaan nahay dad codkiini ku taagan meesha aan rabnana information sax ah haddaadna siisaan waxay naga caawinaysaa si sax ah inaan dadka ula xisaabtano sababtoo ah waxaan ognahay in kaliya xildhibaanka awoodda uu leeyahay iyo codka aadna siiseen in codkiina aan qaadno oo meeshii ay taalay aan geeyno 500 milyan ayaa waxay ku baxday biyaha hadda inoo imanaya waa inaan u samirno inta uu inoo imanayo sababtoo ah in biyo gelintii hadda sida la inoo sheegay la inoo shaaciyay waa gabagabo waana guul baan leeyahay waa waxyaabaha aan ku faanayno in ka xildhibaan ahaan aan leenahay baahiyihii in magaalada Wajaale waa laga jawaabay waxyaabaha aan leenahay biyaha ka inta hadana waa la dhameystiray insha Allah. haddaan u imaado xagga hospitaalka run ahaantii dadaal badan baan ka sameynay in hospitaalkaasi sidoo uu iman lahaa in bidhka maanta ay dajinayaan ayan ilaa ya 4 cisho gudood laakiin la dhameystiray loona diyaar garoobay qandaraaslaha qofkii qaadan lahaa waana ku dabagalaynaa insha Allah socdaalkaygaasi markuu noqdo inaanu maxaan dhahday si dardargelino maadaama ay baahi weyn bulshadayada Wajaale ay u qabto marka taalaftigeega waan daba soconaa wayna inoo imanayaan.